xiriirka Turkiga iyo Yurub wuxuu markasta ahaa mid ku salaysan isma hurto ma jirin rabitaan iyo qanacsanaan labada dhinac ah. Yurubta waligeed raalli kama noqon inay arkaan dal muslim ah oo awood badan oo dalis la ah, balse awoodda iyo saamaynta Turkiga ee gobolka ee aan la dafiri karin ayaa ku qasbaysay inay la macaamilaan, inkasta oo daandaansi iyo xadgudubyo joogto ah ay ku hayeen dalka kan. Sweden iyo Finland waxay sanadii 2019 ka mid noqdeen dalal dhowr ah oo reer Yurub ka tirsan, kuwaasi oo cunuqabatayn dhanka hubka ah ku soo rogay Ankara. Ujeedku waxa uu ahaa sabab la xiriira duulaankii ay Ankara ku qaaday dhulka Suuriya ee ku teedsan xuduudda ay labada dal wadaagaan. yoolka barigaas ee Ankara wuxuu ahaa inay ka sifayso argagixisada PKK iyo YPG. waxaa intaas dheer in Stockholm ay sanado badan martigelinaysay xubno Kurdish ah oo xiriir la leh kooxda PKK, inkasta oo kooxdaas ay u aqoonsan tahay argagixiso. dhinaca kale waxay dhagaha ka furaysanaysay qayladhaanta Ankara ee ah inay soo dhiibaan ama ugu yaraan dalkooda ka eryaan. labadan dal waxay iska dhaadhiciyeen qaacidada ah inaysan weligood u baahan doonin Turkiga, ayaga oo meesha ka saaray xisaabtan aysan weligood ku darsanin in adduunyadu tahay meerto oo si degdeg ah ay wax kasta isku bedeli karaan. isbedel lama filaan ah sidaas ayaana dhacday 24 Febraayo 2022 markii Ruushka uu duulaan ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine, taasoo mawjado argagax iyo cabsi ah u dirtay Yurub, gaar ahaan dalalka aan qaybta ka ahayn xulafada NATO. Finland oo xuduud dheer la wadaagta Ruushka iyo Sweden waxay sanado badan ciyaarayeen door siyaasadeed oo dhexdhexaadnimo ah, ayaga oo aan qayb ka ahayn gaashaanbuurta reer galbeedka ee NATO. balse duulaanka Moscow ayaa ku qasbay inay siyaasaddaas bedelaan, waxayna degdeg u qaadeen tallaabooyin ay ku codsanayaan xubinnimada NATO oo ay si rasmi ah u dalbadeen bartamihii May. labadii dal ee sanado badan ku jeesjeesay Ankara waxay si lama filaan ah ugu soo dhaceen gacanta Turkiga iyo madaxweyne Erdogan sabab la xiriira qodob muhiim ah oo ku jira xeerka NATO oo Turki ay xubin ka tahay. Turki oo hadda loo baahday. qodobkaas ayaa dhigaya in dal kasta oo cusub oo xubin ka noqonaya NATO ay qasab tahay inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee ururka xubinta ka ah, taasi oo Turki siisay awood baaxad leh oo ay ku hor istaagi karto xubinnimada labadan dal. madaxweyne Erdogan kama daahin durba inuu u sheego Helsinki iyo Stockholm inay iska hilmaamaan xubinnimada NATO ilaa ay ka saxayaan qaladaadkii ay Ankara ka galeen. hadalka Erdogan wuxuu fariin cabsi iyo lama filaan u diray reer galbeedka, waayo cidna ma filaynin in Turki ay caqabad ku noqon karto ku biirista Sweden iyo Finland ee NATO. Finland iyo Sweden waxay hadda ku qasbanaadeen inay hoos yimaadaan Turki lana furaan wada hadallo ay ugu codsanayaan inay aqbasho dalabaadkooda, ayna diyaar u yihiin inay xalliyaan walaacyada ay qabto. hase yeeshee madaxweyne Erdogan ma qaadanayo xal af iyo diblomaasiyad ah, wuxuuna hordhigayaa shuruudo adag oo ay tahay inay fuliyaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay ka laabtaan cunuqabatayntii ay saareen, sidoo kalena u soo gacan geliyaan xubnaha PKK ee dalalkooda ku sugan iyo qodobo kale. laba daran mid dooro. labadan dal waxaa hadda haysata laba daran mid dooro oo ah inay iska hilmaamaan ku biirista NATO oo muhiim u ah amnigooda iyo badbaadadooda, iyo inay aqbalaan oo ay fuliyaan shuruudaha Turki, taasi oo bahdil iyo sharaf dhac weyn ku noqon doonta. falanqeeyaal siyaasadeed oo reer galbeed ah oo si caadifadaysan wax u cabiraya ayaa soo jeedinaya in Turki laga saaro NATO haddii ay diido xubinnimada Finland iyo Sweden. hase yeeshee marka loo eego awoodda ciidan ee Turki oo ah dalka labaad ee ugu ciidanka badan NATO kadib Mareykanka iyo halka uu gobolka kaga yaalo, waxaa cad in xubinnimada Turki ay ka muhiimsan tahay tan Finland iyo Sweden. sidaas darteed ma furna albaab aan ka ahayn in Helsinki iyo Stockholm ay la macaamilaan Ankara, taasi oo hadda muuqata maadaama ay wada hadallo toos ah la fureen durba xukuumadda Ankara. sanado badan oo daandaansi iyo isla weyni ah kadib
Finland iyo Sweden waxay hadda ku soo dhaceen gacanta Erdogan. Maamulka madaxweyne Erdogan waxa uu dalkiisa iyo shacabkiisa oo wada jira u horseeday inay dunida magac iyo maamuus ku yeeshaan, cududooda, caqligooda iyo cilmigoodana ay ku meel maraan. Turki maanta siyaasad ahaan waa dal degan oo nabdoon, dunidana horseed u noqon kara. Xagga cududa dhaqaalaha waa kaalin wax ku ool ah, barkulana dalkiisa ka dhigay inay dunida oo dhami il gaara ku eegaan. Kaalmaha ugu horeeyana kaga jira xagga maamul wanaagga iyo kobaca hoose ee dhaqaalaha. Dhinaca muhiimadda kale ee cududa ciidanna waa awood aan la dafiri karin, meel kasta iyo madal kastana mahuraan muhiim ah ka ah. Tani waxay soo koobaysaa muunada weyn, magaca muhiimka ah iyo kaalinta wax ku oolnimada ee Erdogan uu dalkiisa u horseeday. Maanta waxaa Ankara jooga wafuud diblomaasiyadeed oo ka socda labadan dal oo ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub. Sababtuna waxay tahay waxay ogaadeen in hadka ama ardaaga Erdogan uu yahay xeeladooda badqabka, diidmadiisuna ay u tahay sharta iyo in ay qarka u saaran yihiin burbur amni iyo sidoo kale bulshadoodu inay wajahaan duruufo dayacaad ah. Docdaas kalena Moscow iyo Putin ayaa ka hanjabaya. Docda kale Erdogan ayaa shuruudo hordhigaya, iyagu sida shalay toole masaalix qarannimo iyo dana umadeed midna kama turjumin marka ay ku xumayn iyo cadaadis dabcan ay ka muuqatay nacayb gaar ah ay saareen maamulka Erdogan. Erdogan maanta isaga ayaa saaran miiska, nabadoonna ah, muujin karana inuu aqbalo wax kasta oo ay ka doonayaan si isagana uu tiisa u helo.